ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar dhulka uga soo ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa si harsaraah loogu soo dhaweeyay magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud. ujeedka safarka ra'iisul wasaaraha ayaa ah in shacabka reer Guraceel uu ra'iisul wasaare Khayre la wadaago qorshaha uu reer Galmudug kala shaqeynayo inay helaan Galmudug dhammaystiran ka madax bannaan khilaaf aan kala qaybsanayn oo ay ku wada qanacsan yihiin bulshada reer Galmudug isla markaana uu dhageysto talooyinka iyo tusaalooyinka qaybta ka qaadanaya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo kumanaan dadweynaha iyo mas'uuliyiin dawladeed oo soo dhaweyntiisa isugu soo baxay kula hadlay goob fagaara ah ayaa u mahad celiyay sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen isagoo u warbixiyay qorshaha socdaalkiisa Galmudug iyo guulihii la gaaray intuu waday wada tashiyada bulshada uu kala yeelanayay dhismaha dawlad goboleedka Galmudug loo dhan yahay waxauna ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan hormuudna ay noqdaan qorshaha dib u heshiisiinta iyo dhismaha Galmudug. qolo dawlad lagu ma dhisi karo qabyaalad dawlad lagu ma dhisi karo nin jeclaysi dawlad lagu ma dhisi karo dan gaar ah dawlad lagu ma dhisi karo walaalahay reer Guraceel oo la garanayo taariikhdooda Galmudug waxay idinka rabtaa hiilkaasoo ah inaan ku ridno dariiqii saxda ahaa dariiqaasna waxaan aaminsanahay haddii reer Guraceel ay u mudoobaan inay wax badan ka tari karaan midnimada inta kale ee reer Galmudug. waxaan rajaynayaa marka dhallinyarada hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka iyo cid walba oo reer Galmudug oo ay ganacsatada ugu horeyso inaan iraahdo waxaa la soo gaaray waqtiga la dhisi lahaa Galmudug midaysan tayaysan oo toosan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku baaqay in si shuruud la'aan loo joojiyo colaadda dhiigga ku daadanayda ee ka socda deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. walaalahay reer Galgaduud iyo walaalahay reer Hiiraan inaan iyagana ka codsado si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogeyn Matabaan oo ilguulle la yiraahdo in lagu daadinayo dhiig. waxaan leeyahay ama reer Hiiraan ahaw ama reer Galgaduud ahaw waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa intuu marayay deegaanada dawlad goboleedka Galmudug waxa uu kulamo wada tashi la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada si uu dhageysto talooyinka iyo tusaalooyinka la xiriira dhismaha dawlad goboleed dhammaystiran waxauna shacabka reer Guraceel ugu baaqay inay hormuud ka noqdaan dhismaha Galmudug iyo horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. waxaan u nimid idinka inaan idin shaqeyno inaadna amartaan inaad noo sheegtaan qaabkii aan idinkala shaqayn lahayn Galmudug dhammaystiran midnimo ku dhisan cadaalad ku dhisan horumar ku dhisan Galmudug xooggan oo siman oo u adeegi karta dhammaan shacabweynaha reer Galmudug inaan idinla dhisno ayaan idinkugu nimida diyaar ma u tihiin hormuudka ma qaadanaysaan ma nagu hogaaminaysaan dariiqa saxda dhammaan hay-adaha kala duwan ee dawladda federaalka waxay u yimaadeen inay reer Galmudug la shaqeeyaan meel walba oo aan tegey laga bilaabo Dhuusamareeb Cadaado Xeraale Huurshe Caabudwaaq iyo Guraceel oo aan hadda taagannahay meel walba oo aan tagnay shacabka reer Galmudug waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay dawlad goboleed u adeegta shacabka reer Galmudug. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo muddo ka badan 7 ku sugnaa deegaanada Galmudug
ayaa meelaha uu safarka shaqo ku tagay waxaa ka mid ah Dhuusamareeb, Cadaado, Cabudwaaq, Ruushe, Xeraale. ayaa inta uu joogo Guraceel waxa uu si la mid ah deegaanadii kale uu soo maray kulamo la yeelan doona qaybaha kala duwan ee bulshada reer Guraceel si talooyinkooda loogu biiriyo dhismaha Galmudug.